الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أخوكم إبراهيم مرلبات مرسدحات مر أفراد وكسول لابطي وأنا دين جعلناه أحد كأجعشه وحواي والوصول لابطة مركز وسلامته لو بديها وأنا دين كجعلناه إنه وحكي معها دينت إلهي جعشين بيتك إلهي جعشين مساجد إن العمرتان جعشين وحواي قفك سداس oo kale diinta u jecel in la jeclaado loo duceeyo diinta in islaamka nafartay. Ismaaciilow mar labaad ku duceeyayna waxaan soo maqalnay Ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu ku arzuqay walad cunug gabadh Soomaa oo magaceeda la yiraahdo Liina. Kalimatu Liina alhamdulillah waxawaay waa kalimatu tafaa'ul hasan xambaarsan waa qof jilacsan oo dabeecad jilacsan oo baarinimo ay ka muuqato erayga marka la fiiriyo. intaas kadib waxa Ilaahay kaaga baryeynaa cunugtaas ku dhalatay inuu Ilaahay barakeeyo, Ilaahay uu ka dhigo waladan saalihan, walad saalix ah oo adduunyo aakhira naftiisana wax ku tara, aabihiisana wax ku tara, oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta bara, aakhiradiisa iyo adduunyadiisa inuu Ilaahay u barakeeyo, walad barakaysan oo bush iyo xanuun iyo jiro midna aan lagu arkin oo hadhow diinta iyo maadiga heer sare ka gaara. Ilaahay kaaga baryeynaa awlaad kale oo baariyaal ah oo wiilal iyo gabdho leh oo fara badan oo barakaysan inuu Ilaahay ku siiyo, islaanta inuu Ilaahay kaaga dhigo zawjo barakaysan oo baari ah, xurul ciintada jannada inuu Ilaahay ka dhigo, tii adduunkan inuu Ilaahay kaaga dhigo, yaa awlaadda Ilaahay uu ku siiyay Ilaahay uu ku barakeeyo. inta hadda maqan Ilaahay inuu degdeg ku keeno ayagoo caafimaad qaba, wiilal iyo gabdho barakaysan kugu duceyn. guriga guri bulsho ah, ilmahan yaa dhalay Ismaaciil, wiilashan yaa dhalay Ismaaciil, gabdhahan yaa dhalay Ismaaciil. Allahna ku barakeeyo, koriinadooda Ilaahay ma kugu dhibo, mustaqbalkooda, iskoolkooda, quraankooda Ilaahay ma kugu dhibo, adduunyo aakhira garabka Allah gal. nuurun ala nuurin fawqa nuurin barakallahu fiik dhahraka Allah. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا رحمن برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا حجا وعمرة وزيارة النبي المصطفى وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا يا رب تحت ظل لوائه المعقود بفضلك ومنك يا ذا الكرم والجود. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.